kadib markii saacadii laga soo gudbay ay soo bixeen warar sheegaya in dagaal u dhexeeya Somaliland iyo Puntland uu ka dhacay deegaanka gobolka Sool ayaa waxa arintaasi markii ugu horeysay ka hadlay wasiirka warfaafinta aan hafeenka xukuumadda Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo isagoona tilmaamay inay jiraan dandaansi inta badan soo noqnoqonaya oo ka imanaya deegaanka Somaliland dariska la ee Puntland waxaan ugu baaqay in walaaltinimada iyo sidoo kale xiriirka soo jireenka iyo xuduudka labada wadan waa sida hadalkiisa u dhigay xukuumadda Somaliland ka go'an tahay in la sii xoojiyo isla markaana la sii kobciyo xabariyahan loo dhigtaagay xaaladda ka taagan xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Somaliland sida alla socotaan bariyahan waxa ay dawladda Soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha Somaliland tusaale ahaan magaalada Leeda Qoriley waxa ay ku weerartay garaad jaamac garaad cali waxa kale magaalada Tukaraq ku weerartay ama ciidamadooda ku weerareen garaad jaamac garaad Ismaaciil waxa kale oo wasiirka qorsheynta Soomaaliya iyo wasiirka amniga ee Puntland ayaga oo ciidan wata tageen oo si sharci darro ah ku tageen magaalada Baran iyo magaalada Dhahar ayagoo halka ka jeediyay khudbado xaalad abuura ama colaad abuura ay ka jeediyeen sidaas awgeed dawladda Somaliland waxay go'aansatay in aanay u dul qaadan mar dambe xaaladaha caynkaas waxa ay ku wargelinaysaa dawladaha dariska ee geeska Afrika in ay Somaliland tahay dawlad ku aanbaxday nabadgelyada iyo xasilooni kooda noolaanshaha hayeeshee hadda waxaad moodaa in ay soo gabagaboobayso dulqaadkii badnaa ee ay dawladda Somaliland muujinaysay dadweynaha reer Somaliland ciidamada qaranka dawlad waxay heegan u yihiin in ay dalkooda daafacaan waxa ay kale oo ku wargelinaysaa dawladda Soomaaliya in ay ilaaliso kana waantoodo faragelinaha iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wado Somaliland ee xaalad abuurka ah waxaanu ka codsanaynaa in ay ku waantoodo wada noolaashihii iyo isu socodkii iyo nabadgelyadii deegaanka asalka ah waxa kale oo ay aanu wargelinayna dawladaha dariska ah in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa xaalad abuurka ah ay Soomaaliya ka wado laba xuduud dhexdooda ciidamada Somaliland marnaba diyaar uma aha in ay ku xadgudbaan xuduudaha dawladaha dariska hase yeeshee mar walba waxay heegan u yihiin in ay qarankooda ilaashadaan mana dhici doonto in dib dambe safaraha looga laabto wasiirka horfidiinadu weydiiyeen inay xiligan jiraan in dagaal ciidamada militariga ee ku sugan jiidda hore ay ku qaadeen ciidamo ka socda maamulka Puntland ayaa sidan ku jawaabay aan sheegay ciidanka Somaliland xuduudiisa ayuu ku sugan yahay waxaanu fadhigiisu yahay magaalada Leeda Tukaraq sidaa daraadeed waxaanu cadeynaynaa in marnaba inaanay ciidamada Somaliland u tallaabin xuduudda Soomaaliya ilaa hadda ma jirto cid si rasmi ah u xaqiijisay in dagaal halkaasi ka dhacay iyo in kale marka laga imaado dhawaaqa xukuumadda ee ku aadan dandaansiga ay ka deyriyeen in xiligan uu ka soconayo deegaanadaasi Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.